مشارحين توترتنا يحلك مدحتنمada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland waxaan halkan ka soo jeedinayaa press release ama baaq saxaafadeed waan isla waafaqsanahay dhammaantayo maanta oo ay talaada bisha December ay tahay 17 waxaan la ballansanay madaxweynaha dowladda Puntland mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole waxayna ahayd kulan annagu hadda ku aan dalbanay inaan la kulanno madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay inuu aqbalay inaan la kulanno waxaan ka wada hadalay arrimihii aan u arkaynay inay muhiim tahay inaan ka wada hadalno si Puntland ay uga dhacdo doorasho xor oo xalaal ah waxaanu soo jeedinay qodobka ugu horeeya oo ah inaan guddiga khilaafaadka oo muhiim u ah doorashada Puntland aanu si wada jira oo iswaafaqsanaan u wada magacawno waxaanu soo jeedinay in guddigii marjaca ahaa ee isimada oo noqon lahaa guddiga u dhaxeeya musharaxiinta oo dhan ilaalinta doorashada iyo guddiga khilaafaadka kaasna aan la dhammaystiro si wada jira ismadoo dhan waxaanu soo jeedinay inay joogaan dad goobjoogayaal gudaha ah sida civil society-ga bulshada rayidka iyo kuwa dibaddaba ah waxaan kaloo soo jeedinay in loo sameeyo qaabkii ay u shaqayn lahaayeen labada guddi guddiga khilaafaadka iyo guddiga marjaca nasiib darro madaxweynuhu waa naga ogolaan waayay qodobkii ugu muhiimsanaa oo ahaa inaan isla magacawno guddiga khilaafaadka taasoo annagu aanu maantay isku daynay inaanu si aan u ilaalino maslaxadda dalka iyo dadka si aan ugu ilaalino doorasho xalaal u dhacdo inaanu xaq u leenahay inaanu guddigaas isla wada magacawno taasina waxay keentay in shirkayagii maanta uu sidaa ku dhammaado oo wax wada hadala oo dambe uusan dhicinin waxaanu caddaynaynaa inaanu diyaar u nahay wada hadal inaanu diyaar u nahay cid alla ciddiina dhexdhexaadinaysa cid alla ciddii ka qayb qaadanaysa doorashada Puntland inay xalaal noqoto waxaanu u soo jeedinaynaa isimada inay dowrkooda qaataan kana shaqeeyaan sidii khilaafka loo xalin lahaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin anigoo ah afhayeenka musharaxiinta waxaan rabaa kelimada inaan siiyo guddoomiyaha musharaxiinta oo dhan mudane Cabdullaahi Saciid Samton madaxweynaha Puntland oo dhan baan salaamayaa anagu wixii aan go-aankaygu waxaa sheegay afhayeenka cali haddaa sheegay saakis uu sheegay wey waxaan u tagnay madaxweynaha codsigiisi baan ogolanay waxaan ku tagnay meesha qalbi furan waxaan ku tagnay flexibility baan muujinay qodobada waliba si u kala horeeyeen baanu u kala hormarinay qodobka ugu horreeyay baan runtii isku khilaafnay tanko kaleba la gaarin waana qodobka runtii ay ku dhisan tahay doorashada xalaasha ah horeen la ogeyn guddiga xalinta khilaafaadka muhiim u ahaa horaa la isugu qabtay doorashadii hore waa Cabdiraxmaan ka qayb galay oo madaxweynaha ku noqday guddoomiye u ahaa wuxuu ahaa murashaxiinta oo dhan waanu haynaa hadalkiisi baa la hayaa warqadihii la qoray baa la hayaa sidii loo kala qeybiyo dhanna isimadaa dhex galay wax walba waanu sheegnay annaga dhinacayaga waxaanu muujinay flexibility furfuraan baanu muujinay ma rabno annagu muxuu ahaa buuq ma rabno Puntland dhibaato uma rabno doorasho xalaalaanu rabnaa waxa weeye dhinaciisa ayay ka timi si walba waa ugu sheegnay maanta dhinaciisa ka timi adeeg diidmadu dhinaciisa ka timi waan ku nool noqonnay ilaa hata dhowr jeer oo kale ayaan ku nool noqonnay aan bedel mowqifkaada bedel waa naga diiday waxaan marka dadweynaha u sheegaynaa waxaan kala kulannay baan u sheegaynaa waxaan international community u sheegaynaa waxaan kala kulannay waxaan jecelnahay sidii horeba khilaafaadka ay soo dhex geli jireen isimadu inay soo dhex galaan ayaanu jecelnahay iyagaa khilaafaadka noocaas oo kale ah markiiba soo dhex geli jiray si loo badbaadiyo Puntland si doorashadu ay waqtigeeda u dhacdo xagalageed wax ku talagelaya ka weyn doorasho xalaal ah ma waxa weeye lama qarin karo xalaal sida nidaamka ku socotana ay ku hirgelin karaan waa la wada yaqaana waxaan ka codsanaynaa mar labaad intii waxgarad oo dhan oo aan noqdeen culamada diinka ganacsatada garadka inay u guntadaan anagu dhinacayaga ilaa hadda diyaar baanu nahay wax allaaliya wixii la soo jeediyo oo doorasho xalaal lagu gaaro diyaar baanu nahay dhinacaasna hadda kolley sidaas kale ka falaynaa albaabada nagama xira
لكن دينا عبارة لقى حتى ودينا عم نحوينها وين أنت سامعنا بشكل منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.